waxa uu fari jiray awalan dadka uu fari jiray oo u badnayna waxay ahayd salaada cid kasta wuxuu mucaahada kula geli jiray gacantow inta qabto oo salaada inaad dukanaysa miiga ballan qaaday meesha oo wacdigiisu ugu badnay kelimadaasi ma iga ballan qaaday xilligaas taariikhdu salaad ka badnay qof kasta oo salaada amaysan ku wanaagsaneyn oo siraa mucaahado la geli jiray gacantow qaba jiray oo macallin waa dukanaa haddii tiraaho day jiray halkani waa deegaanka Laambuuro waa ziyaartii 36aad ee Macallin Ismaan oo Axmed Cali Sow Nuur halkani waxaa lagu akhrinayaa 104 Quraan Kariimka ayaa lagu subcinayaa dhammaan ilaa 10 meel ayaa lagu dejinayaa 104 Quraanka Kariimka dad badan ayaa ka soo qayb galay dal dibadda ayaa laga yimaaday وعمل صالحات كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وتقول غريبا من ذلك لا يدعون الله إلا الله لا يغفر ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول يزيد للذين كفروا مرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد في الحياة الدنيا عذاب الآخرة أشق وما له من الله من واق الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها بالقوم الذين اتقوا والكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضهم إنما هم يعبد الله ولا يشرك به يدعو إليه وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ومساجدك أسجر بقولت ما فرق يلقوا الدنيا تاريخ الشيخ Macallin Ismaan waxaan faahfaahin Macallin Boqol alxamdulillah waxa waaye galab maaragtay qaaliya macalinku horta maaragtay aabihiis Axmed Cali Sow Nuur nin qaali ah ahayo diinta aad ugu soo dadaalay sagaal wiil ayagoo ahow dhalay sagaalkii wiil Cali Axmed Cali Sow uu yiri iigu dhaani wix allaala wix adduunyo aakhire ay helaan waad helaysaa insha Allah ana kugu duceynaya macallinkuna sida Cali ugu weynaay midka ugu yaraayo ahay macallinku wuxuu ii sheegay 5 jir markuu ahay in loo geeyay Macallin Xasan Axmed Cali Sow Nuur walaalkiis asaga afkiisa iiga sheegay wuxuu yiri Macallin Xasan markii aabihiis oo u geeyay aabbow kan waa yar yahay kan miya hadda wax baranaya aabihiis waa ishaaray oo wuxuu yiri dhammaantiin oo idinka fiicnaanaya ee Qur'aan bar ilaahay wuxuu gaarsiiyay maaragtay khaliif heershi Cali Maye inuu noqdo oo dadkii wanaagsanay oo wax ka soo barto markii oo wax ka soo bartana dalkiisa dhulkii oo joogay meeshuu ka joogo oo ku soo laabto nin mujtahid oo ilaahay ka dhigay diinta ku dadaalay aad u soo sabray taariikhda waxa kamid ah macallinku dadka ilaahay basaa'irta siiyo kamid ahay sabarkiisa ku guuleystay maalin maalmaha kamid ah oon dartiis aan beerta inta gubaaliya nafta inta ay xanuuntay 7 saac iyo 6 saac labada saacadoon falahay aan meel seexdo wiri samada inay ka yeertay sawda ii yeeray wiri
dadka u sabar waa liibaanaysaahe dadka u sabar allay dhahayo diintii waa oogiyey macallinkaynu wax badan oo khawaariqul caadaad ahow lahay oon hadda inta lagu soo koobi karin ilaa 93 sano oo gaaray dad wuxuu ahaa ruux aad u jadba badan waxaan xasuusanaa anigu dadkii yaryarayo al-aakhir ugu dambeeyay aanba ka mid ahay waxaan arki jirnay maanta haddii loo soo socdo oo xirtiisa wax ka mida ay soo booqanayso macallinku waxaan ku gara jirnay inuu jadboodo oo maxabbo ay maaragtay daboosho subaxaas oo shanqartiisa arinka dugsiga reed maaragtay uu na soo gaarto ee aan dhahno galabta macallinka dad ahlu khayra amba kitaabtiisa u imaanaya sidaasna ay naqato macallinka nooga doon kutubka mawluudka laygu yiri oo kitaabta igu tiri waan ka doonay macallinku waxaan u tagay usoo fiirfiirinaya waxaan sameeyay ilmaha hadda jira waxaan ka suurtaabin oo ilaahay u waafajiyay macallinka keen iyo shanqar iyo midna inaanan dhihin inuu heesta dararka waa ka gudbay laba baraako lahay mid uu ku jiray midda kalaan galay midda kale hadaan galay wax yar kadib shanqara yeertay wadaada meesha soo maray xasan cadow la dhihi jiray hadduu gudbana shanqara yeertay jadbadiyaan u qaatay macallinku 93 sano jira waa la qaba jiray dadka kiisaha ciri jiray iyo ikhwaankiisa markay ka qaalib noqoto gurmadkii inaan sameeyo aan u baxay dugsigana waxaa ka soo baxay macallinkayga macallin maxamuud macallin ismaan gurigiisa maaragtay qaybta kalena waxaa ka soo baxda zawjadiisa khadiija sheekh waxaan nimiday jalaad sabdiya usoo akhrinaya kutubkana ku dhagan maaragtay xaaladiisuna aysan caadi ahayn oo miir daboolmay macallinka isoo qabdhow yiri waan qabanay saddexdan maca zawjadiisa yaasiin aan ku bilownay sariirtii markii la saaray kutubkiya gacmihiisa laga bixiyay waa la isku dugay maalintaas waxay ahayd sabti axad isniin na waa geeriyooday marka intaasaan kala socday wax badanna waan ka booday wax badanna waan hilmaamay laakiin maaragtay dad iga muhiimsanna waa jiray halayga raali ahaado ziyaarta waxaan maaragtay sanadkaasu isniin oo ahay 36 sano laga joogaa looxa aniga waxa iigu teela ma kana ibraahimu yahuudiyan wala nasraaniyan maalintaas iigu teela loo xaraftan ka bilowday aayadda ilaahay fadligiis waa xasuusta marka nin maaragtay asaas u yaraan ahay laakiin ziyaartii 36 waaye marka alxamdulillah markastana weligeerna waxba looma raadin cid maaragtay hadda la yirina ma jirto maaragtay adigu wax keen dadku ayaga diinkooda iyo deeqoora iyo waqtigoora inay gelshaan qof kastaba iyada maxaba u qabtayo jecleen ilaa al'aanana waa la dhigaa marka weligeerna maaragtay wax kasta oo makhluuq zaadeysto oo ziyaar lagu keenana caado waxay u leedahay ziyaartu inay iska soo haraan maalmo kadib amba maalinta la kala tagaayo loo qaybiyo dadka masaakiinta marka macallinkayna alxamdulillah intaasaan kala soconaa waxyaabaha taariikhda oo macallinku u leeyahay in kutaabta qaar inta dugsiga hal maalin la keenay odayaashu ay maaragtay keeneen alifka loo meeriyay kutaabtii dadki inta badan ciyaalka ay dhaheen mid kamidana uu dhihi waayay oo iska ooyay macallinku xaaladihiisu inaysan caadi ahayn waxyaabaha lagu garanayo oo dadka la joogi jiray ay ku fahmeen wuxuu yiri dar Allah asagaana kitaabtayda u raynaaye ka waran xaraftii hadduu dhihi waayay canuga uu iska ooyay marka wax aan la gaarin oon la ogeyn oo maaragtay ka hadlay ilaahayna adoonkii sida hadda la xasuusto dadkii qaraabada ahay amba dugsilowgii sida uu u sheegay tilmaantii waa yeeshay marka macallinkaynu waa karaameysnay wax la soo koobi kara ma ahayn taqi ilaahay maaragtay adoon wuxuu ahay mararka qaar aniga waa laygaga sheegay xirtiisa
qaar bacdi ka mid ah waxay iga sheegeen ismaan seexo samada iyadoon ka yeerin ma seexdo waxyaabaha hadda Soomaalidu ay maaragtay zamankan joogto ay laga yaabo inay maaragtay kalaamuleyl isaga qaadato laakiin anagu macallinkaynu intii maqashay amba aragtay amba la soo kulantay wuxuu ahay ahad maaragtay taqwada ku cajab geliyay sabar badan waxa uu fari jiray awalan dadka uu fari jiray oo u badnayna waxay ahayd salaada cid kasta wuxuu mucaahada kula geli jiray gacantow inta qabto oo salaada inaad dukanaysa miiga ballan qaaday meesha oo wacdigiisu ugu badnay kelimadaasi ma iga ballan qaaday xilligaas taariikhdu salaad ka badnay qof kasta oo salaada amaysan ku wanaagsaneyn oo siraa mucaahado la geli jiray gacantow qaba jiray oo macallin waa dukanaa haddii tiraaho day jiray marka wuxuu ahaay maaragtay daaci ilaahayow ahaay diinkii aan ku soo gaarnana ilaahay nafciyow noogu yeelay marka waa u ducaynaynaa ducadayna Allah oo aqbalo gadaashayna anaga gadaashaynana kuwa noo wada duceeya Allah ka soo saaro ilaahay ayaan ka baryaynaa sida anagu hadda u ducaynayno berigana ziyaartiisiyaan joognaa alxamdulillah ilaahayna maaragtay xaalad wanaagsan oo degan oo amni leh maaragtay ilaahay noogu haysiiyay rabbiga macbuudahaana ku mahadinayna